bulsho saqiir iyo kabiir muwaadinimo ka siman bulsho marti soo leeyo bulsho ilbaxnimo ku sugan السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته bulshada Soomaaliyeed ee sida joogtada ugu xidhan waridaad TV meel kasta adduunka daafiisa ka joogtaan waan salaamaya waxa xalay magaalada Hargeysa ka dhacay wax loo kala garan waaye soonamigii Tunisia iyo waliba dhul gariir kadib markii shawgii caaqil yare uu saameyn ballaaran ku yeeshay guud ahaan caasimadda Somaliland waa Hargeysa iyadoo waayeelka iyo dhalinyarada iyo haweenka reer Hargeysa ay dhamaantoodba ka qayb galeen showgaas iyadoo la kala ciirsanayay safka ugu horeeya showgaas oo waliba la lahaa yaan la iga hor dheerayn caaqil yare waxa hawada lagu dubtay saacadihii ugu horeeyayba kaararkii showgaas lagu galayay iyadoo la waayay meel jaan iyo ciribba ay dhigeen ilaa maayo hoolkaas u buuxsamay oo waliba dadkii hoolka ku ciyaarayay cidhiidhi awadeed ay ciyaari kari waayeen waxa buuxsantay wajahada hore hoolka hore ilaa maayo wadada hore ay xirantayba showga oo caaqil yare ku qabanayay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu noqonayaa showgii ugu saameynta badnaa ama ugu dadka badnaaba iyadoo dadka qaar ay ku micnaynayaan showgaas inuu yahay dowlatis loo dirayo fanaankii cawaala yare iyadoo hanaqa lagu goynayo oo waliba la tusayo qofka aanay Hargeysa doonayn inay dhabarka u soo jeediso waa sida dadka qaar ku micnaynayaan si kastaba ha ahaatee alfanaan caaqil yare ayaa waxa uu ku soo bandhigay showgaas heeso in badan shacabka reer Somaliland raali galiyay heesaha waxa ka mid ahaa heeso wadani ah oo waliba hadiyad ah oo uga dhigay shacabka Somaliland intaana barnaamijkayga duluciisa u daadegay oo qaar ka mid ah heesaha aan nila wadaagin ama aanan warbixin ku saabsan showgaas aan soo gudbin waxaan ka codsanayaa bulshada Soomaaliyeed ee ku xiran kanalkayga inay booqdaan kanalka halka iniga muuqda ee loogu magacaabo cunta macaan kanal waxay inii daadihinaysaa gabar ku takhasustay danka cuntada وعنtada guryaha iyo waliba cuntada macsuumadaha iyo cunto kasto oo Soomaalidu ay jeceshahay ama ba ay riyaqaan fadlan inta xushmada iyo ixtiraamka ay hayso booqda kanalka oo subscribe na saara maal iyo adduuntoona kuguma joogto intaasi hadaa inta kaga gudbo kanalkaas bal halkan yar la milicsada وهي laabta u sidaaya waa fanaanka yare daada yare codka halaasigaale caaqil yare bulsho jecel nabad samaan bulsho jecel wanaag saxnaan bulsho soo dhaweyn leh iyo bulsho gobonimo ka siman waa bulshada Somaliland bulsho jecel nabad samaan bulsho jecel wanaag saxnaan bulsho soo dhaweyn leh showga uu ku qabtay magaalada Hargeysa alfanaan cawaala yare ayaa waxa uu ku soo bandhigay heeso kala duwan oo raali galiyay guud ahaan shacabka Somaliland gaar ahaan shacabka ku dhaqan caasimadda Somaliland waa Hargeysa heesahan oo ka koobnaa heeso wadani iyo heeso jacayl iyo heeso uu hadiyad uga dhigay shacabka reer Somaliland heesaha uu hadiyada uga dhigay waxa kamid ah heesta uu gobolada Somaliland oo dhan wada marayo ee waliba horumarka iyo nabadda iyo geedi socodka dimuqraadiyadda uu kaga hadlayo Somaliland waheesta in badan oo shacabka Somaliland taabatay qulubtooda waheestan uu leeyahay bulsho jecel nama samaan bulsho jecel wanaag saxnaan bulsho soo dhaweyn leh iyo bulsho gobonimo ka siman waa bulshada Somaliland waa alfanaan caaqil yare oo gobolada Somaliland dhamaantood mid isu dul taagaya oo waliba hoosta ka xariiqaya gooni socodka iyo waliba dimuqraadiyadda iyo waliba kala dambeynta ka jirta Somaliland bal hal daqiiqo ila milicsada waxa had iyo jeer shacabka Somaliland ay sheegaan waa dab qofka wanaagsan ay farta ku fiiqaan waa qof wanaagsan qofka xun ay farta ku fiiqaana waa qof xun caaqil yare wixii laga sheegay ayaa soo baxay bal hal daqiiqo ila milicsada heestaas
bulshada xaysimiya sool badhan sanagiyo togdheer saraariya dadmadheer saaxil hawd maroodi jeex gibilay awdaliya samar degtay dhamidin salaan dhamidin salaan somalilaaniga guddooma caaqil yare ayaa waxa uu keenay shacabka jamhuuriyadda somalilan hadyadda ugu qaalisan ee weliba hadyahaan la isugu keeno isagoo shacabka jamhuuriyadda somalilan ama gobollada somalilan la hadlaya ayaa waxa uu yidhi bulshada xaysimiyo sool badhan sanaagiyo togdheer saraar iyo daadmadheedh saaxil aw maroodo jeex gabiilay awdal iyo selel degta midig saar salaan somalilan iga guddoon waxaan filayaa shacabka somalilan ama guud ahaan gobollada somalilanba inay ka guddoomi doonaan salaanta gacaltooyo ee uu hawada u soo mariyey fanaanka codka dahabigaa leh ee caaqil yare ayaa showgiisa waxa uu noqonayaa showgii ugu saamaynta badnaa ugu dadka badnaa iyo weliba showgii loogu hadalhaynta badnaaba inkastoo showyada hargeysa ka dhaca ay dhammaantood wada show yihiin haddana la kala dad badan oo la kala baabuleesha badan oo weliba la kala saamayn baran waxaa sidoo kale showga aan ka madhnayn oo door weyn ka ciyaaray oo qayb libaaxla ka ciyaaray kooxaha faraha badan ee ka jira magaalada hargeysa waxaana dhammaantoodba ka soo wada dhex muuqday guud ahaan fanaaninta reer hargeysa oo dhan kala saarsaari maayee waxa labada baal ee ku duulay caaqil yare ee weliba sida hagar la'aanta ugu duulay waxa weeyaan waa alfanaan maxamed siciid biike oo qayb libaaxla ka qaatay showgiisa iyo sidoo kale fanaanada codka dahabigaa leh waa khadra silimo oo iyaduna qayb dahabiga ka qaadatay showgiisa sidoo kale waxaa xusud midan markii showgaasi u dhammaaday tv-ga Ariel TV oo waraysi xiiso badan kula hor yeeshay showga hortiisa waa hoolka lagu qabanayay showgii fanaanka caaqil yare ayaa waraystay markuu uu ka yaabay showgaas dadkii faraha badnaa ee ka soo qayb galay caaqil yare oo ka warramaya showgaas oo weliba u mahad celinaya fanaanintii iyo dadka ka soo qayb galayba ayaa waxa uu ku soo daray oo weliba si gaara ugu mahad celiyay fanaanka alfanaan maxamed siciid biike iyo sidoo kale khadra silimo weliba waxa uu yidhi gabadhaas waxay tidhi qari oo magacayga ha sheegin bay tidhi waa fanaanada khadra silimo oo aan jeclaynba inay faanto ama libteeda caddaysaba ayaa tidhi waxaan kuu qabtay iska ilow laakiinse hay sheegin aniga bal hadda qaqayla micisada isagoo sheegaya oo biikeena u mahad celinaya oo weliba leh gabadhaasina waxay tidhi magacayga ha xusin hadda qaqayla micisada daawasho wanaagsan qaaliga ka soo qayb galay walaalkay maxamed siciid biike oo garabkayga taagnaa dee fanaanta magacooda ma soo wada koobi karo aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa dhammaantoodba kooxaha ka jira hargeysa waxaa kaloo mahad celinaya walaalkay xaaji walaashay oo magaceeda ka cudur daaratay iyadana aan jeclahay dee dhammaan iyo asxaabteeda heer maraykan sida aa wada daawanayseen alfanaan caaqil yare waxa uu mahad celiyey guud ahaan fanaaniinta reer hargeysa oo dhammaantoodba ka soo dhex muuqday showgiisa uu ku qabsanayay hargeysa iyo weliba kooxaha ka jira hargeysa waa dhammaantood oo isku duubane waxa uu si gaara farta ugu fiiqay ama ugu mahad celiyeyba oo uu ku nuuxnuuxsaday fanaaniinta kale ah boqorka codka maxamed siciid biike iyo sidoo kale fanaanada codka dahabigaa leh waa khadra silimo waa labada fanaan ee baalasha u noqday caaqil yare ama uu ku duulayba ee showgiisa u qarxiyeyba ee si gaara isbarbar taagay inkastoo khadra silimo ay ka codsatay inaanu magaceeda ku xusin marka uu mahad celinayo fanaaniinta waa sida uu afkiisa inooga sheegayey ama uu lahaa gabadhaasi waxay tiri magacayga ha ku xusin halkan khadra silimo waa gabadh ka cararta faan iyo iska dhaadhicin balse tiri waxaan ahay waajibkayga ayaan gutay mahad celin uma baahni sida aynu wada ognahay magaalada hargeysa waxa ay u shidan tahay fanaaniinta kale ah khadra silimo iyo maxamed siciid biike meel kastoo fanaanin looga baahdo
أما الدولة هالنقدان أما الشعب هالنقدان لبدا فنان أيا كوكل قشا وأنا سببتها أي سوبر برتاجين فنان كان عاقل يره إن بنو الشعب كمدا أيا وحي سويدينيا إن كسو خطر سلمو أي تاجر مجيء ميسان له أي موتي ساعة ولا يره محمد سعيد بيك محو موتشواي لكن سي أنك قلوبت بني آدم كما دال عن لكن سوي النوم مغدا أما إن ده يجوا ياركيان أيان وشاكنا وإحنا كنراهنا عوالا يره شوقا هلا قرية أيان ليهاي وحاو كنا قنية عقدة نفسية يولبا على الحمى بحسن وأبد قادة دون هرقيسة سكستبها هاتي عاقل يره أيا وحاو سامين بلاران كوياش مقالة هرقيسة isagoo showgiisa uu noqday showgii ugu horeeyay ee kooxaha Hargeysa oo dhan dhammaantoodba ay isku arkaan oo waliba ay dhammaantoodba gardaadiyaan si kastaba ha ahaatee showgani waxa uu noqday showgii ugu qaraxa badnaa ee guud ahaan hareeya magaalada Hargeysa gabagabadii shacabka Soomaaliyeed ee ku xidhan kanalkayga inkastoo baryahanba aad gowska dambe igu haysaan oo ay leedahay ninkii daakad cusub buu noqday oo dhan kale ayuu awoodda saaranaya laakiinse anigu sidayda banaanba hal shakhsi iyo laba shakhsi oo qura ma raali geliyo oo waliba ma jeclinaan ku raali geliyo been iyo madadaali iyo sida uu jecel yahay laakiinse waxaan jecelahay inaan u soo warramo ama barnaamijyadayda u soo tabiyo sida wuxuu jiraan waana sida xaqiiqadu tahay كل بشر بانهاي وانا خلطمي كذا لاكيسي وحا مهمة دول داران تاهي إنا حقيقة تقصدي تاهي أنو هادلو قبل فضلا هدي كان الكاتكو عصب تاهي سبسكرايب سار قبل الكنات تابو سيادة نقطة تقف كمقالة إذا كل راح يستيقوه الرئية هدي هذا هو قمد هاي كان الكنا كومنتي يلايك تصوبدي سينا شير قرم وقالكن وذاكروني له والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.